aad nasiisay Soomaalidu inta badan waxay yiraahdaan Axmed Naaji wuxuu ka soo jeedaa dadka Carabta arintaas waxa ka jira run waayo anigu aabahayga waa Yamani wuxuu ka soo jeedaa dalka Yaman waa horow yimid Soomaaliya soo ku yimid anu garan maayo Talyaaniga askar Talyaani buu noqday ka bacdeen hooyaday buu guursaday anagoo dhalay marka anu xamalan ku dhashay Soomaaliyan ku dhashay kelmadana aad su'aashana aad baa dad la arkaan dhibsaday anigu Soomaali niman isku tirinooya inaan ahayna Soomaali dalkii Soomaaliyan ku dhashay ayaga magac ii yeelay ayaga sharaf ii yeelay inkastoo Yamantana aan ka soo jeedo waa dadkayga ma ilooba laakiin waxaan u badnahay oo dadkii aniga aan ku soo dhax koray Soomaaliyan ku soo dhax koray ku abtirsanaa marka waxaan rabaa inaan ka qosolsiyoon kula kaftamo waxbaa jiray mar alla sheekan way igu soo noqotaa anigoo meel jooga qolay xanteen waan maqlay xantoodi kan soo Axmed Naaji ma ninkaaniiti xarab Soomaa maxaa Soomaalida dhaxgeliyay heshiya nabadeeya baada waxaas ka wada ya maxaa dhaxgeliyay Soomaalida ma carabtiis iskaga tago kelmadda aad baan ugu carooday dad Soomaalida arka waxbu ninkii magacaaba waxba laga sheegaya mugtahay ayaga dhaxdood wax wali iska sheegan kelmadan aad bay ii dhibtay marka gabayar baan sameeyay wali ma duubin waxaan rabaa iyadoo aan habeeyo aan duubo in yaran ka maqashinamay kelmadan carabta aad igu sheegtay oo Soomaalida ilaahay يعني ninkan muu ka dhaxbaxo Soomaali wali isku ku jiray hadana reerad iyo qabiil baa loo kala baxay anigu ma ka dhaxbaxay anigu xuduud ma dhig Soomaalidu waa dadkay